Ku soo dhawaada channelka Somali Bitcoin. Channelkan waxaan ka wada hadlaynaa xagga cryptocurrency-gu iyo Bitcoin-ka maraya maalin kasta. Channelkan waxaa lagu talagalay dadka af Soomaaliya ku hadla adduunka meel kasta ay joogaan. Haddaad channelka ku cusub tahay, like iyo subscribe taabo si qofka lagu faa'iidaysan karo. Maalin kastana video cusub aan soo duubnaa. Aad iyo aad ba mahadsantidiin. Coindesk baan joognaa oo website-ka ugu muhiimsana markay ka mid tahay dhinaca Bitcoin-ka waxa laga hadlayo. Waxaa lagu leeyahay maanta market wrap Bitcoin and other crypto came from second straight week. Marka labadii week ugu dambeeyay Bitcoin aad buu faa'iido aad buu kacay. Taas waxa weeye wax kala dama aha GDP-gii baa kacay. GDP waxa waa gross domestic profit. Waa dhinacay company-yaashii wax kasta ay ka sheekeeyaan markay sanad kasta intay helaan intay sameeyaan iyo dalku intuu xaggu marayo dhinaca economy-giisu. marka waxaasoo dhan marka kacan Bitcoin uu la kacayo la Bitcoin waa digital currency bal maanta waan ku soo noqonnaa intaan akhri doono laakiin waxaan eegnaa chartkan mar eegnaa maanta xagu marayo chartka waa kan waan kan arka baa ka marka la socotaan chartka waa kan maanta waa aragtaan Bitcoin si fiican buu kacay shalay wuxuu marayay 81,000 oo gini maanta 2,000 oo gini oo 2,000 buu kacay oo dhow taas wax kale lama aha waan saan ka sheekeynay shalay toole waa markuu Fedku sheegay inaanu interest rate ka kicinin interest rate ko lacagta bangiga laga amaahdaa oo ribadu ku jirto oo aad bangiga ka amahanaysa dowladda u saacnaysa lacag riba ay ku jirto ma taas sare mu kicin wuxuu kiciyo 75% buu kiciyay xagu ka kicin lahaa 100 marka dadku marka lacag badan bay faa'iideen maragtay bay ka kiciyeen 100 bay ka kicin lahaa ilaa 75 bay ka kiciyeen maragtay percent marka dollarkii waxaad u celinaysaa bangiga meelaha 20 cents 20 cents maragtay laakiin inaga waxaas inuu faa'iidin ma jirto waxaas waa riba inagu wax fiican ma wax la iska ilaaliyo xagga diinteena laakiin sidasta waxay dadkanu markasta sameeyaan bangiyaashooda ay u sheegaan si dadka lacagta u maahayaan marka taas waa taa laakiin marka laga hadlo dhinaca Bitcoin waa iska asset waa wax koriya maalin kasta marna uu dhac marna uu kaca waxa ku xirantay inta xaggu bangiga mariyo laakiin waa investment fiican oo qofka doonayo inuu isleeyahay wax ka faa'iido 2-3 sano oo wuxuu markasta koriya markasta dhinaca la arko hada sida la fiiriyo marka waa taa marka maanta uu kacay waa ka Ethereum uu kacay oo shalay wuxuu marayay 1,300 oo gini dhow buu kacay waa taa oo bauna marka wax noqonaysa $3,000 hadaa la eego xaga lacagta marka waxaan wuxuu baahan yahay education bay baahan qofku maalin kasta la socdo oo maalin kasta xagu marayo marka channelka anuguna waxaan sameynaya maalin kasta inta duubi kara inta duubiya marka waligiinba like subscribe taabta si qofku laga faa'iideysan karo meel kasta duuka joogo marka aan galno maanta bal inuu chartka maxay isbedelay bal let's go marka Bitcoin kan galno Bitcoin oo godfather ka ninka ugu sareeya meesha oo leeyahay godfather ilaahay baa god laakiin ninka wax kasta kala wada markuu Bitcoin kaco wax kasta way kacaan marka waa taa aan galno maanta awal chartka saacadii ugu dambeysay intaas waxa 20kaas waxa imkana maxaa raal noqda saacadii ugu dambeysay intaas waa imkana intaas soo yara dhacay laakiin imkana wadinka arka uu koriyaa maalin kasta isagoo saa walba ogeedeen isagoo sanadkii meel fiican mariyo 50,000 marayay oo 10 sano ka hornayso 50 gini quraha meel $170 marka wax badan buu kacay aragtaan intaas sano marka wax investment oo long term hore qofka uu fikraya marka waa taa marka maalinta ugu dambeysay anagno maalin week ma eegnayno maalin baan eegnay marka maalinba video cusub aan soo duubnaa saan la socon waxa kasta soconaya maalin kasta marka waa taa shalay tola waa taa idin kaarka skeletonkaas waxa maanta intaas waxa marka intaas waa kun dhow ku kacay maalin qora ma aragtaa imkana wali uu sii kordhaya marka waxa lagu leeyahay 30% buu kacay percent buu gain garay marka waa taas wax badan waa taa bal nireegno waxa taa maanta sabab keentay ku noqdo Coindesk market wrap Bitcoin and other crypto gains second straight week labadii week ugu dambeeyay Bitcoin uu kacayo baa was gain straight baa lagu leeyahay garan Williams baa soo qoray kale duka meesha jooga ma garan laa wala meesha joogi marka waa taa waxa Bitcoin BTC finished intaas aan akhriyay
finished the week with 5% high, gaining ground second consecutive week. Weekii labadii ugu horreeyay ugu dambeeyay wuu kacayay unbaa lagu leeyahay. And it also the third positive week and the last for the large cryptocurrency by the market capacities. Because Bitcoin pushes high even after the US Common Department reported Thursday that the US gross domestic product declined. Isagoo gross domestic hoos u dhacay baa lagu leeyahay weli wuu kacay Bitcoin. Maaragta ka waxaan iminka waxay sheegaysaa dee inuu Bitcoin noqonayo wax iminka adduunka meel kasta laga isticmaali doono, sida lacaga la isku dira la isku dari doonaa, wax dadka faa'iido weyn. Marka berigi hore dadku waxay lacag isku diri jireen bangiga laakiin waxa lagu leeyahay lacagta digital baa la bedelay lacag technology taasoo marka Bitcoin bushkareynaya. Marka waxaan maanta wax maalin bilaabanay maayo beri waa wax mustaqbalka way future-ka weeye. Marka dee waa waxaasaan u furay channel-kan si dadku ay Soomaalida uga faa'iidaystaan oo inaanay 10 sano kadib marka waxaan lacag laga sameynayay inay saagalaan. Marka waxaasaan anigu dadkan u sabooraan doonayaan la socdaan waxa Yurub ka socday meel kasta inuu Bitcoin xagu mariyo maalin kastana maaragta. Marka waata marka anu waan meesha alaabtana aan hayana waan markasta waxaan ku soo qoraayn channelka hoostiisa aad ku akhrisan kartaan. Waxaan wax kale ma xubay qofku education u baahan yahay waxaan la socdo maalin kasta xagee marayaan. Marka waata wax la wii qura 10% buga 20% marka waxa noqonaysaa 20kiiba waa 2000 marka uu yar 2000 buu kacay wiigi ugu dambeeyay baa lagu leeyahay finished ana wiigan wuxuu ku dhameeyay 5%. marka waxaan waa wax dad aragtida kacaya maalin kasta ama hoos u dhacmo sare u kaca laakiin wax koraya dhinaca marka laga arko businesska economiga dadku inta badan lacagta stock market-ka geliyaan laakiin dad badan baa imika eegteen inuu cryptocurrency aqbalayaan oo lacagtooda ay gelinayaan maaragta. laakiin waxaan wax u baahan tahay education anigu financial advisor mihi anigu waxaan nin reporter waxaan ka hadlaanahay saan dadku uga faa'iiday meel kasta ay joogaan maaragta. anigu markii koobaad beri maan garanay laakiin markaan waxaan fahmay waxaan ka akhriyay alxamdulillah amba waa tan oo maanta ka hadlaya. marka like subscribe taabta si qofku wax uga faa'iideysan karo maalin kasta video cusub aan soo duubna saan sheegay. marka waa tahay maaragta waa tahay haddana chat ku soo noqonay marka waxaan doonayay chat-kan ku dambeeya maaragta. marka waxaan tusay maanta day chat-ka waan tusay awal chat-ka waan tusay waa aragtaan marka waa aragtaan oo wiigan si fiican buu Bitcoin u faa'iiday marka iminka markiiba marta buf waxaan u baahan education waxaan fahmay si waxaan u socoto qofka inuu article-ka maalin kasta ay meesha ku soo qoray inuu akhriyo si looga faa'iideysto iyo inuu like subscribe taabto si dad kale waxaan uga faa'iideysan karaan oo ayaa la sii saboro. marka waa taa marka waxaan ku dhamaynaa weena beri video kala soo duubaya waxa isbedeli xagga economy marayo laakiin waa aragtaan maanta si fiican buu kacay hay weena beri.